waxaanu maanta halkan isku kaya keenay inaanu waxa weeye bulshada aanu xildhibaanadu nahay aan matalnay inaan u sheegno shacbiga Soomaaliland inaan u sheegno mudanayaashii golaha ee aan waxa weeye maqana aan u sheegno dhacdadii shalay tolo ka dhacday golaha wakiilada 19 bishii ee shalay ahayd dhacdadaasoo waxa weeye ama kaag iyo waxa weeye fool xumo aan gooluhu hadduu alla idmaayo ka soo kabanaya aan ahayn dhacdadaasoo ahayd waxa weeye qayb sharci waliba qayb sharci lagu tilmaami karo maayo waxaan raadraac sharci lahayn kadib markii 3 mudane oo ka tirsan golaha wakiilada oo waxa weeye golaha fadhiyay ay laba mooshin oo laba mashruuc sharciya oo taabanaya laba xeer oo waaweyn xeer lambar 91 xeerka doorashooyinka guud iyo xeer lambar 14 2011 labada xeer ay wax ka bedelkooda soo codsadeen arinkaasaanu maanta waxa weeye halkan isku gudnimaanu ka hadalno waxaanu ka xunnahay wixii shalay toolo golaha ka dhacay waxaanu ka xunnahay filka oo waxa weeye uu mas'uuliyadeeda leeyahay shir guddoonka golaha wakiiladu waxaanu ka xunnahay inuu dhacay sharci jabin oo lagu tuntay dastuurkii jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisii 38aad farqadiisa afraad oo tilmaamaysa golaha wakiiladu wuxuu waajibaadkiisa shaqo u gudanaya si waafaqsan xeerosaadka golaha wakiilada iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerosaadku wuxuu ka mid yahay xeerarka uu mishangareeyay dastuurku waana xeer qaran qodobka 24aad ee xeerosaadka golaha wakiiladana wuxuu tilmaamaya marka mashruuc sharci ama mooshinkaas uu imaado qaabka codayntu u dhacayso marka anagu halkan waxaan inaan ka cadeeyaan doonaya wixii halka ka dhacay waxa fawdu ahaa wixii halka ka dhacay waxa foolxum ahaa wixii halka ka dhacay waxa sharci dar ahaa codayntii halka ka dhacday wax la ansixiyay ma jirto bulshada in been loo sheego oo la barbagandeeyo oo wax aan jirin loo sheego wuxuu ka hor imanayaa xeerosaadka golaha iyagu u codeeyay ee lagu dhaqo ee waxa weeye maalin kasta day to day activity-ga goluhu qabto xeerosaad buu ku dabaqaa qodobka 24aad 5 farqadood oo kamid ah ayuu tilmaamayaa ayuu waxa weeye ka hor imanayay wuxuu ka hor imanayaa ayuu sheegay marka waxa weeye ay dhacaan falalka waxa weeye aan sharciga baalmarsan markay dhacaan waxa tilmaamay qodobka 72aad farqadiisa koobaad baa tilmaantay waxaan doonayaa inaan idin la wadaago farqadaha tilmaamay qodobka 24aad ee xeerosaadka golaha wakiilada haddaad eegto wuxuu oranayaa kala badh iyo hal 42 xubnooda xubnaha golaha wakiilada ayaa noqonaya guntanku waa koramka weeye guntan marka laga reebo xubnaha la baahiyay banaashooda kuwaasna ma jiraan haddaad qodobka farqada labaadna akhrido gudoomiyaha ayaa xaqiijinaya guntanka intaan codka la qaadin codka marka la qaadayo inuu guntankii sharciga ahaa 42 ka joogan gudoomiyaha xaqiijinaya farqada afraad waxay odhanaysaa go'aamada ka soo baxa fadhiga golaha waa sharci haddii guntan jiray guntankaas oo 42 xubnood ah markii codka la qaadayay isla markaana uu waafaqsan yahay xeerosaadka haddii uu guntan jiray oo 42 xubnood fadhiyeen markii codka la qaadayay waxa weeye go'aanadaas sharci bay noqonayaan waxaynu ogeyn oo mudanayaasha maanta saxaafadda aad ka daawan doontaan oo fiidiyowgii hadda la daawan waxa weeye baraha bulshada oo dhan ku jira oo idinku aad joogteen in 3 mudane oo ka tirsan golaha wakiiladu ay shalay toole waxa weeye meeshii fadhiyeen guntankii aanu jirin qayr sharci ahayd qodobka 27aad ee xeerosaadka goluhu wuxuu tilmaamayaa habraac kasta oo goloweynuhu u maro xilgudashadiisa oo aan waafaqsanayn xeerosaadku wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan marka waxaan halkan ka cadaynaynaa in shir guddoonkii ku tuntay xeerkii dastuurkii qaranka iyo dastuurkii iyo xeerka dalka ugu weyn ahaa inuu ku tuntay xeerosaadkii golaha wixii halka ka dhacay inay fawdo ahayd xeerna anagu ma aqoonsanin horta de waxaad ogaataan stage-ka koobaad ee marka mashruuc sharci imaado goluhu waa stage-ka koobaad guurti baa ka dambaysa madaxweynaha ka dambeeya xitaa goluhu ku soo noqda laakiin xeerkaasi aadi maayo golaha guurtida waxa weeye kumana waxa weeye suuragal ma aha guddoomiyahayagii iyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee golaha shalay wixii golaha ka dhacay guddoominayna waxaan leenahay haddii golihii ay idinka qiimo bateen intii shalay fadhiday haddii shalay toolo markii xeer lambar 14 aynu isku haynay
dhowr iyo 20 mudan aad golaha u furteen haddii maantana faldamiyeedkaasi dhacay waynu kala dheeraynay waynu soo gaadhaynaa waynu kala dheeraynay waynu soo gaadhaynaa baan leeyahay marka waxaan leeyahay arrinkaasina waa sharci daro ciqaabkeedana waxaanu ballan qaadaynaa waanu ballan qaadayaa maanta kelmadda aan nin dambe iga daba odhanaynin golahaasi inta sharcigii ku soo noqonayo dib u furi maayo waa iskugu imanaynaa ilaa xeerkii la soxoo raaligelin ka dhacdo oo wixii laga noqdo oo golahaasi wixii jabiyo foolxumada halkaa ka dhacay shaqo kale oo la qabanaya ma jirto mas-uuliyaddan annagu xildhibaanadii uma haysano xildhibaanku xaq buu leeyahay inuu mooshin keeno xildhibaanku xaq buu leeyahay inuu helo mooshinka oo la yidhahdo waa ansaxo dariiqa sharciga laakiin goloweynaha wuxuu guddoomiyaha u doortaa ee shirguddoonka u doortaa inay ku ilaaliyaan shuruucdii degsanay mas-uuliyad daradii halkaa ka dhacday waxaanay laba ku ahayn oo ay hal qof ku tahay waxa weeye shirguddoonkii halkaa guddoominayey ee waxa weeye mas-uuliyad daradii xaayinimada sameeyey waxay ogtay laba xeeroo waaweyn oo wixii khilaaf dalka ka taagnaad ogey ayaa la yidhi 12 iyo rubuc ayaa la yidhi waa la furayo laba xeer baa inta amadma lagu samaynayey ayaa la fadwooday oo la yidhi waa sharci masaa la yidhi la doodi maayo masaa la yidhi waa la codaynaya masaa 3 codaysay haddii aanu idinka yeelan waxaa doontaan sameeya aad iyo aad maanta halkan mudanayaasha jooga waxa weeye mudanayaal baa ku maqan hadduu alla ka dhigay geeri agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda arrimaha gudaha allah u naxariistay geeriyooday oo maanta boorama lagu aasayo dalka Hindiya laga keenay ayaa mudanayaashii kale aadeen 46 mudane oo golaha wakiilada ka mid ah ayaa waxa weeye waraaqdan hadduu alla ka dhiga saxiixay waxa weeye mooshinna waa keenaynaa sabtidii golaha inoo ahaanaysaa haat burhaanad baan leenahay hadduu alla idmo golaha guurtana waxaan u sheegaynaa waxa labada jaran loo sameeyey ee labadan gole loo sameeyey ee guurtiya wakiilada loo sameeyey waxa weeye wixii halkan ka khaldama in halkaa lagu saxo marka waxaan rajaynaynaa codayntii halkaa ka dhacday xeer muu ahayn codayntii halkaa ka dhacday غير sharci bay ahayd xaaraan bay ahayd xaaraan lagu dalacay ay ahayd wax la aqbali karana ma